qodobka 32 faqradiisa kow xarafka ah oo isna laga yaabo inaad maaragtay sidii Soomaaliya u burburtay laba kaadlaha iyo saddex kaadlaha iyo afar kaadluhu waa iska bateen dhowr dhalasho ama baasaboor lihi marka waxa ku xusan qaadashada dhalasho dal siseeye inaan xubinta hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranku qaadan karin dhalasho dal shisheeye qofkii hore u haystay lagama hadal laakiin inta uu hay'adda joogo haddii uu rabo inuu qaato dhalasho dal shisheeye waa inuu ogolaansho ka haystaa agaasimka iyo madaxda hay'adda haddaba isbarbardhig baanu samaynay ama comparative study oo aanu la eegnay shuruucda kale ee dalka ee weliba geeskan Afrika wadamada geeska Afrika guud ahaan badankooda iyo Somaliland ku dheer nin baa oran jiray wadamada dariska ka mid tahay oo irbad la yiraahdo senator marka wadamada dariska waa wada eegnay oo Somaliland ku jirto waana la akhrinay run ahaantii sharcigeennii 1900 iyo دوجيه حلو انا اسدغسنه marka مهدي Afrika oo dhan baan eegnay مهدي gudoomiyaha hadlay waxa uu kaada xilwaano sharafta leh cidii qabta point of order waa siinayna laakiin aan joojino garaaca cidii toosin sameynaysa waa siinayna insha Allah waa sida waa santi raalli ahaada waa inoo soo gabagabeeyaa comparative analysis ka ama comparative study gaana waa sameynay oo ay dhammaan shuruucdaasi sidee bay u shaqeeyaan iyo hay'adahaasi sidee bay u shaqeeyaan ay leeyihiin ugu dambeyntii sharcigani waa la faguran yahay ablayn soo kuma inaan dhigan jirin iskuulka biology waa ahaa la fagurna suugaanta lagu sheegi jiray marka waa la faguran yahay waanu ablaynay hay'adda nabad sugidda iyo surdoonka dabar iyo hoggaan baan loo sameynay xuquuqda ay leedahay iyo waajibaadka saaran hay'aduna waa ku cad yihiin oo waan ku xusnay waxaan oran karaa markaa waa mid ka mid ah shuruucda hay'adaha nabad sugidda iyo sirdoonka ee wadamada casriga ay leeyihiin haddii aanu ahayn kan ugu casriyeysan xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka markaa waxaan ku codsanaynaa inay codkooda ku biiriyaan oo ay ansixiyaan waana ka doodi kartaan dooduna waa furan tahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu